bangiga Merchant ee dalka Mareykanka ayaa joojiyay adeegu u fulin jiray shirkadaha xawaaladaha Soomaalida. Go'aankan ayaa hay'adaha gargaarku ay ku tilmaameen mid joojin doona 80% gurmad gaaraya 200 oo milyan oo Soomaalida Mareykanka joogta ay u diri jireen eheladooda joogta Soomaaliya. 11 ka tirsan Congress-ka Mareykanka ayaa warqad u qoray xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka oo ay ku boorinayaan in xawaaladuhu ay furnaadaan. Ken Ellison oo laga soo doorto gobolka Minnesota ayaa aqalka Congress-ka ka hadlay isaga oo codsaday in la yimaado qaab arintan xal lagu helayo. I'm calling on our government to get together. waxaan dawladda ugu baaqayaa oo ay ku lamaansan yihiin hanti dhowrka xafiiska xisaabaadka wasaaradda arrimaha dibadda in laga tashado sidii loo joojin lahaa lacagta gacanta qardan ku dhacaysa loona socodsiin lahaa midda gasha gacanta wanaagsan. waxaan doonayaa qorshe Soomaalida joogta Mareykanka ay lacagtooda u diri karaan oo uusan xakinaynin hanaankeena dhaqaale. hadda Soomaalida Mareykanka joogta lacag uma diri karaan eheladooda joogta Soomaaliya kuwaas oo ku tirsan qutul daruuriga. haddii uusan jirin bangi leh hanaan dawladeed oo ka shaqeeya Soomaaliya waxaa Soomaalida qurba joogta ah ee ku dhaqan caalamka waxay lacag ugu daraan eheladooda xawaaladaha taas oo lagu qiyaaso 1.3 bilyan oo u dhiganta 1.1 euro sanad kasta sida laga soo xigtay hay'adaha gargaarka. Ken Ellison oo laga soo doorto gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka waxa uu sheegay in joojinta xawaaladaha Soomaalidu ay dhibaato u keeni karto. Soomaalidu waxay wali ku tiirsan tahay lacagtan waa dal ka soo kabanaya burbur colaadeed. haddii aynu xawaaladaha ka joojino waxaynu arki doonaa masiibooyin sida Al-Shabaab oo ku doodaysa in Mareykanka iyo wadamada reer galbeedku aysan doonayn in Soomaalida la kaalmeeyo. waa inaynu la nimaadnaa hanaan aynu uga libin keeni karno qorshaheena una joojin karno lacagta gasha gacanta khaldan balse la helo in si fudud ay lacagta ku gaari karto gacanta wanaagsan. dawladda Soomaaliya ayaa bangiyada Mareykanka ku boorisay in ay ogolaadaan in xawaaladaha Soomaalidu ay dib shaqadoodii uga bilaabaan Mareykanka iyada oo ka dhigaysa in arintani ay keeni doonto masiibo aad u mug weyn oo ku xabsata wadanka Soomaaliya oo awalba aan wanaagsanayn dhaqaalihiisu.